falcelinta dowladda Masar ee weerarada ka dhanka shacabka Falastiin inta badan waxa ay ku koobnaayeen cambaarayn dowladnimaadeed iyo bilowgii dhacdadii xaafadda Sheekh Jarraax halkaasoo Yuhuuddu doonaysay inay shacabka Falastiin degan xoog uga barakiciso balse labadii maalmood ee u dambeysay waxaa muuqda lahjada Masar in wax badan ay iska bedeleen gaar ahaan mowqifkeeda ku aadan dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimahaasi waxa ay dhaliyeen in su'aalo badan la iska weydiiyo sababta ka dambaysa isbeddelka ku yimid mowqifka Qaahire ee waqtigan la joogo dhawaan waxaa sare u kacay mowqifka wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ay ka istaagtay xaaladda Falastiin sidoo kale telefishinka rasmiga ee dawladdu waxa uu toos u baahiyay khudbadda jamcihii masaajidka Al-Azhar laga jeediyay waxaana xasuus mudan in khudbaddaasi toos loogu taageeray Falastiin sidoo kalena caalamka islaamka looga dalbanayay inay taageeraan qadiyadda Falastiin oo ay hiil siiyaan shacabka Falastiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta Masar gaar ahaan kuwa ka agdhow taliska Cabdilfataax Asiisi waxa ay bilaabeen adeegsiga erayo qallafsan oo ay uga soo horjeedaan tacaddiga Yuhuuddu ka wada marinka Gaza iyo Qudus ayadoo ay jirto in shakhsiyaad caanka ka ah Masar sida laacibiinta kubadda cagta fanaaniin jilayaal waaweyn iyo kuwa kaleba ay bilaabeen olole ka dhana Israa'iil iyo xadgudubkeeda dhammaan arrimaha isbiirsaday gaar ahaan hadallada wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiinta aadka ugu dhow Cabdilfataax Asiisi waxay keeneen in su'aalo la iska weydiiyo xiisadda cusub iyo adayga Masar ay u muujinayso Israa'iil waqtigan wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri waxa uu si adag ula hadlay Israa'iil wuxuu ku tilmaamay in falalkooda iyo weerarada ka dhanka Falastiin ay yihiin xadgudub iyo cadaawad waajibna ay tahay in si degdeg ah loo joojiyo waxay u muuqataa inay Israa'iil iska dhagatirtay dadaal ay Masaaridu bilowgii dhacdada bilaabeen wuxuuna salka ku hayay sidii loo heshiin lahaa oo nabad looga soo dhexdabaali lahaa xaaladda ka taagan Falastiin isla markaana xaaladda loo dejin lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaana si cad u sheegay in wada hadal ay la yeesheen Israa'iil kaasoo ay ku dalbanayeen in xaaladda la dejiyo heshiisna la gaaro balse shuruudaha ka yimid xagga Israa'iil ay ahaayeen kuwa adag oo aysan suuragal ahayn warbaahinta Masar waxa ay tabisay in wasaaradda caafimaadka Masar ay u dirtay dhanka xuduudda ay marinka Gaza la wadaagto gawaarida gurmadka degdega ee ambalaasta si dhaawacyada duqeymaha Israa'iil ku dhaawacmay loogu soo daabulo dhanka isbitaalada waqooyiga Sinai 1200 oo dhakhaatiir u dhalatay Qaahira waxa ay qalinka ku duugeen inay u safraan Gaza oo ay qayb ka noqdaan badbaadinta dadka Falastiin oo ay gurmad ahaan halkaasi u tagaan arrimahaasi waxay keeneen su'aalo badan in la isweydiiyo sababta haatan ay sare ugu kacday heerkulka falcelinta Masar ee dhacdooyinka Gaza taasi ma waxa loo fasiran karaa isbeddel ku yimid dhanka siyaasadooda arrimaha dibadda ma dhabba in Masar haatan doonayso in kiiska qadiyadda Falastiin mar kale gacantooda dib loogu soo celiyo ma la dhihi karaa Masar waxay ka cadsatay in kiiska qadiyadda Falastiin uu ku dhaco gacmaha dowladda Carbeed ee la saaxiibaya Israa'iil arrintaasoo hanjabaad ku ah danaha Masar sidoo kalena dhibaato ku ah qadiyadda Falastiin qaar ka mid ah khubarada falanqeeya siyaasadda gobolka bariga dhexe gaar ahaanna midda Qaahira waxay arrintan u arkaan mid aanan wax weyn oo sidaa loo buunbuuniyo ahayn hadallada qallafsan ee Masar ka soo baxayaana aysan marnaba ahayn kuwa dhaafsiisan afka baarkiisa waxay sidoo kale yidhaahdeen waxaa macquula inay isaga leexinayaan jamaahiirta shacabweynaha Masar ee dhigaya dibadbaxyada waaweyn kuwaasoo looga soo horjeedo tacadiyada Yuhuuddu ka wadaan Qudus iyo Gaza Xuseen Xariidi oo ah safiirka Masar u fadhiya Israa'iil sidoo kalena horey uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar oo su'aalo la xiriira isbeddelka ku yimid falcelinta mowqifka siyaasadeed ee Masar la weydiiyay wuxuu tibaaxay in Masar ay weligeedba doonaysay heshiis iyo in nabad la kala dhex dhigo Israa'iil iyo Falastiin si shacabka Falastiin ay uga badbaadaan tacadiyada Yuhuudda safiirku wuxuu uga digay Yuhuudda inay ku kacaan falal cadaawad leh ayna xasuuq u geystaan shacabka Falastiin digniinta safiirka ayaa noqonaysa dhambaal aan toos ahayn kaasoo u diraya Israa'iil sida uu leeyahay haddii aydan tacadiga joojinin xiriirkeena si weyn ayuu u burburi doonaa taasina waa arrin aysan Israa'iil marnaba ku farxi doonin ayuu yiri safiirku wuxuu tilmaamay in Masar si cad ay ula safan tahay halganka shacabka Falastiin taasina aysan ahayn mid marnaba daah saaran yahay
maruu ka jawaabaya su-aasha ah haddii masar arrinkan u samaynayso inay dib u soo ceshato kiiska qadiyadda falastiin islamarkaana meesha ka saaraysa dowladaha carabeed ee heshiiska la gelaya yuhuudda si kiiska ay uga fogayso wuxuu tilmaamay in masar awalba xaalad noocan dhacda ay sidoo kale uga falcelin jirtay waxaatan cusubna aysan ahayn waayo buu yidhi kiiska falastiin waa mid quseeya amniga qaranka ee masar inkastoo ay jiraan heshiisyo nabdeed oo lala galay yuhuudda haddana ma jira nidaam ka arrimiya masar oo faraha ka qaadi kara mas-uuliyadda masar ee taariikhiga kuna aadan kiiska falastiin dhacdo kale oo weyn waa khudbaddii jaamaca al-azhar uu ka jeediyey jamcihii lasoo dhaafay axmed cumar hishaam oo xubin ka ah hay-adda ugu sarraysa culummada masar si weyn caalamka ayay u soo jiidatay islaamka isagoo ku baaqay in la dhiso awood islaamiya oo ilaalisa dhulalka carabeed iyo kuwa islaamkaba masar hishaam waxa uu yuhuudda ku xadgudbaysa masjidka barakaysan ee qudus ku tilmaamay inay yihiin ayax mudan in la iska dhiciyo waxa uuna carabka ku adkeeyey oraahdaha wixii xoog lagaaga qaato waxaan xoog ahayn laguma soo ceshado waxaa lama filaan noqotay markii uu khudbaddiisa ku yidhi nidaamka adduunkan ka taliyow ahaada qaramada midoobay ama golaha ammaanka ama hay-adaha xuquuqul insaanka ama xukaamta iyo madaxda adduunkan waajibaadkiinna ka soo baxa waa qasab inaad hal dhinac uga soo jeensataan sidii ayaxan looga sifayn lahaa qudus meeshana looga saari lahaa dulmiga ay wadaan macsuum marsukh oo ah safiir hore sidoo kalena diblomaasi masaarida u dhashay wuxuu arkayaa in mowqifka kooxaha midowda falastiin ay waajib tahay wakhtigan la joogo inkastoo uu sheegay in dowladda masar xilli hore ay meelo badan ku kala aragti duwaanayeen ururka xamaas balse haatan wax walba waxaa ka daran buu yidhi cadaawadda yuhuudda iyo tacaddiga ay kula kacayaan shacabka falastiin waxaa muuqata in masar hadda ay dadaal badan gelinayso in mar kale ay soo cesasho kiiska weyn ee ku saabsan arrinta falastiin si ay uga dheerayso gacmaha waddamada kale ee islaamka kuwaasoo hadda galaangal xooggan ku leh arrimaha ku saabsan gobolka falastiin ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda